aroornimadii saakay nin xoolo dhaqataa ayaa aana qabiil darteed lagu dilay deegaanka la yiraahdo Hulkujir oo hoos taga degmada Xiraale isla sidaas oo kaleeto xilli muddo isbuuc ku dhow laga joogo isla deegaan u dhow oo lagu magacaabo Laanqaylo oo hoos taga degmada Xiraale waxa isna lagu dilay nin nabadoon ahaa oo aana qabiil darteed loo dilay labada nin ee dibka loo kala geystay waxay ka soo kala jeedaan beelaha kala degad degmada Xiraale iyo sidoo kaleeto Cabudwaaq halka markay joogto waa u caado reer Galmudug marka roobka la gaaro inay isdilaan yani waxa ogaataa markasta oo gu ama dayr roob da'o reer Galmudug way isdilaan markaas ayay isku soo firaaqoobaan oo qofka kale ayuu dilaa maalmo ka hor waxa arkay odayaal iyo sidoo kaleeto wax garad ka soo jeeda degmada Xiraale oo dawladda ugu baaqay inay wax ka qabato falki ka dhacay deegaanka la yiraahdo Laanqaylo laakiin Galmudug ilaa hadda kamaysan jawaabin waana sababta maanta la dhigi karo loona aanay karo in dilkaan kala dhaca waayo beelaha Soomaalidu waxay yaqaaniin markii qof laga dilo qof kale ay dilaan ilaa yeesan waxba iska gelin haday rabaan marka dibka maanta dhacay wuxuu aargudasho u yahay dibkii isbuuc ka hor dhacay hadaba maamulka Galmudug ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada ciidamada ammaanka taliyaasha ciidanka oo dhan waxaan leenahay dibkaas maanta ayuu wax ka qabashalay maanta ayuu ka gaaris leeyahay maanta ayaa la dhihi karaa labadii beeloodba kuwii dibka geystay keena adinkana kuwii dibka geystay keena maanta ayaa la sameyn karaa in hortooda lagu toogto kuwii marxuumiinta dilay maanta ayaa laga shaqeyn karaa nabad waarta labada beelood dhaxmarta sababtoo ah hadii maanta la keeno kuwa dambiga geystay iyo kuwa dambiga geystay tiirka la keeno hortooda lagu toogto waxay tusaale u noqon doontaa kuwa kale ee dambiga noocaas oo kale geysan doona kuwii hore ninka nabadoonka dilana gardaray ku dileen kuwa ninkan kale ugu aargudana gardaray ku dileen waayo ninkan looma qisaasi karaba iyaguna qisaastooda ma lahayn hadii la dhilaa ninkii hore xaqiisa raadinayeen ninkan qisaasta kuma fusho ayaguna ma aha kuwa qisaasta fuliyaha marka maanta maamulka Galmudug fursad wuxuu haystaa ah in labada beelood nabadooda uu ka shaqeeyo hadii maanta aan wax laga qaban oo maanta arinta aan la gelin waxay gaari doontaa meel aan wax laga qaban karin meel 40 iyo 30 ku dhimato maanta waxay joogtaa dablay hubeysan ayaa nin xoolo dhaqataa dishay laakiin bari waxay joogi doontaa duulaan ayaa ka dhacay deegaanka yani dadba dagaala ka dhacay culus ayay gaari doontaa marka maanta wax ka qabasho leedahay bari inta ergeynta isku dirtaan geed hoostii la fariisa lahaa meel 40 wiil ku dhimatay meel 30 wiil ku dhimatay ee hilib intaad ku cuntaan meesha gabayada iyo gaarada isaga tiri lahaydeen maanta ay qabasho leedahay qabashada ay leedana waxay tahay kooxdii dambiga geystay in la soo qabto waa tan ay labada reer kooda joogi karaan dibka qabnaa wuxuu yahay roobaha duudo waa isdilna sababtuna waxay tahay dad aan wada deganaajin ayaa isla soo daga sida uu soo nahay markii roob gudo waa la isku soo naqraac wax la jira yani ninkan waxa laga yaabaa beesh meesha ugu dambeysay inuu deganaa jiray meesha roob ka daa uu soo aado sidoo kale to kan kalena beesh meesha ugu dambeysay uu deganaa jiray meesha roob ka daa uu soo aado waxa isdilaa marka ama wax is aanay ama han ku wada degan yani beeluhu meelaha ay dib ka dhaca badan waa meelaha xuduuda ee beeluhu iska galaan marka kuwa isdilaa ku wada degan ma ee waa kuwa soo galootiga ee kor ka yimid waa kuwa soo naqraacay ayagaasa isdila ayagaasana wax dila marka si ay tusaale ugu noqoto kuwa kale u imaan doona aysan meesha dib ugu geysan maanta hal soo qabto maanta gartas hal galo gartas maanta gelis leeda waxaan u malaynayaa qof ku faraxsan ma jiro maanta dibka ka dhax taagan labada beelood waxaan u malaynayaa qof maanta ay farxad gelinayso ama macaash ka helaya ama nacfi ugu jiraysa jirin labada beelood dagaalaan marka qof kasta ee labada beelood ka dhashay waxaan u baaqayaa inuu ka qayb qaato nabadeynta iyo inaysan arintaasi faafin waayo bari walaalka ku dhiman kara aabaha ku dhiman kara walaasha ku dhiman kara wiilkaaga ku dhiman kara mar aanada tadaba la qabtay leeyihiin bay Soomaalidu maanta wax ka qabasho leeda gaar ahaan dhalinyarada beelaha ka soo jeeda waxa uu baaqaya inay u ololeeyaan ama ay u istaagaan sida labada beelood oo san dhibaato uga dhaxdhicin in ayagu iswacaan israadiyaan ayagoo jira tagaan meesha hadii la ku imaayo nimanka dibka geystay labada beeloodba waa la yaqaan maanta inay ayagu hormuud u noqdaan in la soo qabto inay hormuud u noqdaan in tiirka la geeyo lagana fuliyo dambiga ay geysteen inay hormuud u noqdaan in labada beelood oo san dhib ka sii dhicin dabcan dhalinyaro badan oo asxaab ah kulaya waa aqaana labada beeloodba ka soo jeeda arinta loo istaago iswac waa istaqaanin og jaamacada wada dhigatiin shaqooyina ka wada shaqaysiin israadiya ee arinta hala galo dad reemiga xoolo dhaqatada iyo isku sii fogaan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.